madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa siyaabo kala duwan ula kulmay qaybaha bulshada ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland isagoo uu xariga ka jiray xarunta fiber optiga iyo dhismaha cusub ee xarunta shirkadda Golis ay ka dhisatay magaalada Boosaaso. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale goobaha lagu nasto ee ku yaala magaalada tani Boosaaso uu tagay isla markaana uu waqti la qaatay dhalinyarada iyo bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari isagoo madaxweynaha waqti siiyay dhalinyaradan si uu u dhageysto fikradooda kala duwan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale maanta xariga ka jiray xarunta fiber optiga iyo dhismaha ugu weyn shirkadda Golis ay ka dhisatay magaalada Boosaaso waxaana uu ganacsatada uga mahadceliyay doorka muhiimka ah oo ay ka qaadanayaan horumarinta dalka Soomaaliya. aniga waxaan idin sheegayaa dawladdan aan madaxweynaha u ahay ganacsatada waxay la tahay saaxiib aad iyo aad u dhow. dawladdan waa dawlad runtii horumarinaysa ama barnaamijyadeynaysa ganacsatada maxaa yeelay waa waxa kaliya oo hadda shaqo abuurka iska leh. marka haddii idinkuna aad saaxiib la noqotaan dawladda oo aad la shaqaysaan waxa abuurmaya dawladda inay xoogsato, dawladda inay adkaato, nabadii ay soo noqoto, aan keenno maalgashi shisheeye aan keenno. madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii waxa uu u dukaamaysa tagay suuqa magaalada Boosaaso iyadoo dadweynaha ay u gacan haatiyeen madaxweynaha dawladda Soomaaliya xilliga dukaamaysiga uu ka sameynayay magaalada Boosaaso. Cumar Maxamed Somane, Universal TV, Boosaaso.